cabsidu waa dareen ka mid ah waxyaabo Allah inagu abuuray si aan u feejignaano khatarta. Carruurtu waxay ka cabsadaan waxyaabo badan oo arki kara inay khatar ama halis ku tahay. Waxaan ka cabsadaa usha, waxaan uga cabsadaa in la igu tumo. Waxaan ka cabsadaa mugdiga, waxaan uga cabsadaa wax amaadan soo fiirsanaa oo bahalo camal ay soo hormaayaan. Ana waxaan ka cabsadaa libaaxa sababtoo ah waa dad cun. Waxaan ka cabsadaa meelaha dhaadheer, waxaan uga cabsadaa inaan ka soo dhaca dhinto. Cabsadaa baranbarada, waxaan uga cabsadaa korkeeda markaan arka labalaba ay qabtaa. Waxaan ka cabsadaa cidlada sababtoo ah hadhow ama wax ku soo gaaraa camalaas dhaha. Waxaan ka cabsadaa maska, waxaan uga cabsadaa sun oo leeyahay oo yaqaninaya. Balse ma ogtahay carruurta oo laga cabsiyo waxyaabo aanan jirin inay hoos u dhigi karto dareenkooda, isla markaana ay u fududayn karto marka ay u baahan yihiin dareenka feejignaanta inay lumin karaan ama ku sii badan karto oo ay noqon karaan kuwa ka cabsada wax walba. Waxay qaarkood ku sii raacdaa cabsidaas ilaa ay ka weynaadaan.